magaalada borama ee xarunta gobolka awdal ayaa caawa waxaa lagu qabanayaa munaasibad lagu taageerayo murashaxnimada madaxweynaha dalka Jabuuti ismaaciil cumar geele. munaasibadda ayaa waxa ay goordhow ka bilaabmi doontaa mid ka mid ah howlalka ka binaysan magaalada borama ee xarunta gobolka awdal. munaasibaddan ayaa waxaa soo abaabulay jaaliyadda ku nool Somaliland gaar ahaan gobolka awdal.